يا بسم الله بدك بح آد هبين بح معلم بح ولا قربه يا ولا قود يا نبر muuqaalo la yaab leh ayaa laga duubay Masaswal magaalada Garowe iyo Muqdisho waxaana gabadhan ay ka soo baxday magaalada Nairobi imaatinkeeda Muqdisho iyo Garowe waxay xijaabka ay ka tuurtay gabdho badan oo xijaabna ayadoona arrintan ay ku soo qaadatay mashruuc aad u weyn oo laga soo siiyay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaa arrintan loo og xubno ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwaas oo barbagaan u sameeyay gabadhan si ay u hesho suuq weyn oo xagga dumarka isla markaana gabdhaha da'da yar ay u lumiso si degan muuqaalkan u daabo adiga ayaa yaabi doona madaxana qabsan doona dhammaantiin muuqaalka leegta ku qabta siina shargareeya rabbi subxaanahu wa ta'aala dhammaanteen umuuraha leenahay ilaahay ay noo sahlo aan ka hortagna xumaanta shakhsiyaad yar oo ka mid ah Soomaalida ay geysanayaan kuwaas oo ay ku doonayaan in ummadda inteeda kale ay ku fidneeyaan Masaswal waxay caan ka tahay barta TikTok waxaase lagu baahiyaa baraha kale ee bulshada ayadoo qaawan waxayse u bareertaa sameynta ficilada xun ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu reebay dhawaan waxay aaday Garowe halkaas oo ay kula balantay xubno ka tirsan howlwadeennada madaxtooyada Puntland ee madaxweynaha uu ka yahay Saciid Cabdullaahi Danni xilli leef ay ku jirtay waxay si toos ah u sheegtay inuu u yimid wiilka madaxweynaha Puntland Saciid Danni oo ay kula balansan tahay hoteelka waqtina ay wada qaadan doonaan laakiin saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland iyo qeybo kale ayaa ka duubay muuqaal la yaab leh gabadhan Masaswal macno badan ma sameynayso duubista muuqaalka laga duubay Masaswal waa waxay u bareertay meelo kala duwanna muuqaalo ayaa laga duubay laakiin ujeedka wuxuu yahay dhuminta ay dhuminaysa gabdhaha Soomaaliyeed ee xijaaban kuwaas oo ku sugan meelo kala duwan oo Soomaaliya ah waxayna soo qaadatay mashruuc weyn oo ay ku doonayso inay ku lumiso gabdhaha Soomaaliyeed dhawaan gabdho badan oo xijaabna ayaa xijaab ka tuuray kadib markii ay la saaxiibeen Masaswal saaxiibtinimadeeda kadib waxaa xigay gabdhihii TikTok ee niikin jiray xijaabna oo dhammaan xijaab ka tuuray kuwaas oo hadda caadi u arka in xijaab la'aan la niikiyo waxaa ka mid ah gabadhan ama cunugtan lagu magacaabo Habi oo ah cunug aad u da'yar waxay soo geli jirtay TikTok ayadoo xijaaban laakiin hadda kabsaartii ayay tuurtay xijaabka sadaa warkiisa mar dhow waxaa la arkayaa ayadoo tuurtay gorgorada waana mashruuc weyn oo lagu soo qaatay gabdhaha Soomaaliyeed xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa gabadhan dhowr mar dacaayad iyo barbagaan xagga baraha bulshada u sameeyay waxaa ka mid ah Dubbe wasiirka warfaafinta Soomaaliya iyo sidoo kale Jaamac oo ah wasiirka cadaaladda kuwaas oo garab ku siinaya fulinta mashruuca ee wadata gabadhan waxaase muhiim ah Soomaalida gaar ahaan waalidiinta in gabdhahooda ay ka ceshtaan Masaswal iyo gabadhan hadda la dhuntay lagu magacaabo Habi tuurtayna xijaabkii iyo gabsaartii go'aansatayna ayadoo xijaab la'aan ah inay niikiso sida Masaswal oo aan jirin waxay ka xishoonaysa wal markay soo gasho baraha bulshada waxay soo gashaa ayadoo xabadkeeda labada ukumood ee ku yaal ay taagan yihiin waxaase ay tuurtaa gabsaarta ma jirto waxay ka xishooto meel walba jirkeeda ka mid ayaa la arkaa wayse u bareertaa in muuqaalada laga duubo waxayse caadi ka dhigtaa in macsi la sameeyo isla markaana la zinaysto waxay ku faanaysaa in hotel uu dejiyo madaxweynaha Puntland wiilkiisa iyo howlwadeennada caasimadda Garowe ku sugan ee u shaqeeya Danni iyo sidoo kale xubno kale waxayse Nairobi markay joogto ay sheegtaa inay la kulantay madax ka tirsan dawladda ayna casuumeen hotelna ay degan tahay Muqdisho iska daawarkeeda waxaase muhiim ah in waalidiinta ay ka foojignaadaan kuwa noocan oo kale u dhaqmaya wala qurbaha ya wala guud ya nabarada ku gaariya waxaad ka gubatay way gaara shadeerto guurtiba ku badano